maraanu maanta kula kulanay magaalada Boorama ee xarunta gobolka Awdal gudoomiyaha degmada Quljeed ee gobolka Awdal Maxamed Cali Magan ayaa waxaanu ka wareysanay xaaladda guud ee degmada Quljeed ayaa waxa uu gudoomiyuhu nooga waramay xaaladda guud ee ku sugan tahay degmada Quljeed isagoo cabasho balaaran ka muujiyay maamulka gobolka Awdal oo sheegay in ay ka shaqeyn kari laayihiin tan iyo markii loo soo magacaabay xilka isagoo ka hadlaya gudoomiyuhu arrimahaas iyo arrimo kalena waxa uu sheegay dadka meesha ku nool waa beeraley bay u badan yihiin dhaqaalana runtii magaaladu haddii ay heli lahayd management maamul saxa aad ayuu dhaqaalaheegu u fara badan yahay inkastoo nuga khaatiyanahay degmada Boorama oo wixii aan cashuurno ay diido oo dadkii ka qaado waxaan anagu soo cashuurno magaalada Boorama way cashuurtaa iyagoona noo ixtiraafsanayn gudoomiye markaad leedahay kii Boorama gobol maamulka gobolkaana wada xukuma waana kii arbitrate-ka ahaan lahaayee noo xaq soori lahaa kii ayaa u janjeeray degmada Boorama la shaqeeya had iyo jeer dhibta ugu weyneen ka dhaqaaqi laanahay degmahaana waa maamulaha gobolka bada saabka oo had iyo jeer la taagan meesha inayna degmadu wax jira ahayn ayna degma ahayn hoos nimaadna Boorama taas ayuu had iyo jeer nagu sunduleeyaa sababaha ay wax noogu dhaqaaqi waayeen ayay taasi ka kowtahay hadalkaad imika leedahay wuxuu maragu yahay kii aan ku lahaa laba degmo oo siman ayaa nahay maamulkooguna aw kala gooni yahay markaas sababahan maamulka gobolka uga cabanaynay kamid tahay isagaa soo diray degmo waxay ugu xadgudubto sideedaba waa qalad hadalkaygii horuu maragu yahay kaa aad leedahay ka maamul ahaan waxay ahayd inaanaka iyo barasaabku aan isku xidhnaano laakiin manu jeclin inaan degmo u soo marno kale oo nalamida maadaama degrayta madaxweyne aan haysano waxaan jeclahay inaan degmadeeda u madax banaanaano haddii uu barasaabkani sidaa kusii socdana waxyaalo badan ayaa hadhow iska horimaad ayaa dhici kara beeshayduna had iyo jeer maanta nasiib wanaag waa la ogaaday dhibta magaaladu halkay ka imanayso waa xaggiisa hadduuna ixtiraafi waayo annaguna maamulkiisa inaan ixtiraafno berri ma dhacayso kastaba ha ahaatee cabashadan balaaran ee uu ka muujiyay gudoomiyaha degmada Quljeed gudoomiyaha gobolka Awdal Cabdo Axmed Aayar waxa laga dhur sugayaa gudoomiyaha gobolka Awdal Cabdo Axmed Aayar waxa uu kaga jawaabo cabashada inta leeg ka soo yeedhay gudoomiyaha degmada Quljeed Nuruddin Cabdullaahi Dugsiye wararkii gobolka Awdal xaruntiisa magaalada Boorama.